السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دhammaan waa salaamantihiin walaalayaal meel walba joogtaan maanta waxaa maalin sabti waaye waa ku ilaatanka bisha sideeda labada kun ku ilaatanka ah barnaamijkan waxa waaye waxaan u talagalay dad badan su-aalo isu weydiiyey oo telefoonka iyo qaaska iga soo waxay mataqaana arwamaanta runta inaan u sheego sababta facebook aan u joojiyey walaalayaal sheeka aniga aan sameeyey ahayd mataqaana sheekadii mataqaana dad oo fiinland jooga waxay dhaheen ninkaan daday ku xanteen ajanabi ninkaan carab waaye soomaali ma ahan sheekaas anaa sameeyey marka waa inta ka raaligelina marka u horeyso mataqaanaa waxawaaye laakiin sababta u joojiyey aan raba hadda inaan sheego walaalayaal fiinland waxyaalo badanaa ka dhaco siyaasadda hadda soomaalida guud barnaamijka wuu quseeyaa isha khatar waay isha khatar waay marka sababtaasa idin sharaxi doonaa waxyaalaha ugu yaabka badnaa oo aan ku arkay inta social media aan ku jiray iyo waqtiga maanta markii la joojiyey nolosheyda si isku bedeshay alxamdulilah washir bacaalamiin nolol aad iyo aad u wanaagsanaan galay raaxaan galay mataqaanaa waxa waaye mataqaanaa shirkadaha rabaa inaan furto haddii ilaah yidhaahdo mataqaanaa hamigeyga iyo nolosheyda waxa waaye aad iyo aad macnaha wax lasoo koobi karin waa horta maad ilaah lagu shukri waay alxamdulilah washir bacaalamiin marka sababta oo mataqaanaa oo aan u joojiyo social mediahan ayda kugu sharaxa oo realityga waa runta taas waay naarta jahannam allah geliyo runta maanta idin sheega haddii ilaah yidhahdo insha allahu tacaala sheekadan oo aniga carab waay soomaali ma ahana sheekaas anaa sameeyey laakiin tanaa run waa ay taqaani aniga waxaa idin sheega run waay aamina walaalayaal barnaamijka waxaa waye sababta u joojiyey social media barnaamijka idinku sharaxi doonaa automatic waa joojiyey laakiin marmar ciwaankeyga marka waa xiraa markaan furo barnaamijkan oo kale hadda wuxuu ku jiraa haddii ilaah yidhahdo si aad u ogaataan dhammaan sheeraa saaraysiin asxaabtii dhan u diraysiin maxaa si ay u ogaadaan reality u ogaadaan isha khatarta ay leedahay aan rabaa inaan idin sheego haddii ilaah si looga badbaadayo oo barnaamijka quseeya marka walaalayaal waxa waaye fiinland hadda reer fiinland la hadlaa fiinland wax badanaa ka dhaco siyaasadda markay noqoto arrimaha markay noqoto wax walba idin soo tubiyaa marka ugu horeyso ani waxaan cid lacag ugu siinaysa male ilahay dartiisa u sameynaya soomaaliyan dadkayga soomaaliyeed oo aan jeclahay wax badan alla taabo karana uga qabtay macnaha dad badan aan dhiirigelin dad badan wax u sameeyey dad badanaa macnaha ishaan u furay masaajida ugu weyn fiinland resinga laga ogyahay walaalayaal aniga waxa waaye waa idinka raaligelina horta inaan idinka aamuso laakiin marmar macnaha bishii hal maraan furaa ciwaanka waa soo gelinaa hadda masaloo kale waxaa idiin soo wadaa wiiga soo socdo isniinta dowladda fiinland caasimadda helsinki ilaa gobolada waxaa lagu wareejinaa corona basiga macnaha si mataqaanaa bis sagaalaad markii wax walba la furo kalaabka markay noqoto baararka markay noqoto diyaaradaha markaad raacaysid markaad doonta raacaysid markaad baararka maqaayadaha waaweyn markaad fadhiisanaysid shawiyada markaad ka qaybgelaysid isbartiimada tiyaatarka waxaas wadankoo dhan waxawaaye kaasaa la keeni doonaa macnaha qofka labada talaal qaato oo mataqaanaa corona basigaasaa la siinaa waxaweye meel walba u maraysa haddaad labada talaal qaadanin corona basi ma lagu siinaayo gurigaa ku xayrnaanaysaa maqaayadna wax ma ka cuni kartid meel ma fadhiisan kartid mataqaana diyaarad ma raaci kartid waa lagu cadaaba hadda kahor idin sheega aniga walaalayaal marka sababta markaad labada talaal qaadato corona basiga sida loo helaayo isniinta dowladda soo gelinaysaa habka loo mataqaana oma kunta bistafiga looga galaayo habka looga soo baxsanaayo telefoonkaaga si macnaha sofliskaaga si loogu samaysanayo wax dhan anaa idin tusinaa haddii ilaha lagu wii kadib aa idin tusinaa haddii ilaha maraan soo geli doono waa idin tusinaa taas reer fiinland waay walaalayaal aniga intaa social media ku jira sida ogtiin aniga ma ihi sida dadka caadiga ma ihi wax ma qariyo dhibaatada ay haysato si idinkaa markhaati ka noqonaya wax walbo waa sheegaa soomaali maxay aaminsan tahay qabiil ay aaminsan tahay qabiilka marka waxaan dhahay qabiilkan horta soomaalida maxay ka aaminsan tahay qabiilkaana horta maxaa tahay horta asaa kafta hadda kor idin sheegay asaa kafta ka sameeyey laakiin dadka isku garaad maa sida ogtiin walaal dadkeenni qaarkood qabiil environmentiga waxay kusoo koreen sida ogtiin dad horta dadkeena midaysa fahansaneyn oo qurbaha joogo dad badan waxay leeyihiin oo 30 sano jooga 20 sano joogo oo hawiyaanka hadla idaarood macnaha qaarkood maraykan iga soo wacan wallahi qaar fiinland ay joogaan way la fadhiistaan way la sheekaystaan qaar yurubta joogaan ingiriiska joogaan 30 sano 20 sano joogaan waxay dhaheen shariifow xitaa jaalida aydin sheegaya oo aan karbaashahay xitaa waa ay dhaheen wallahi bilaa tala ururada ay dhahay war shariifow dadkan aqoon muulihide nin waxaa tahay intaas dhowr 20 sano qurbaha joogay nolosha qurbaha faad nin irbax u beeziyaana tahee niyahow dadkan faraha la geli anigaa kaa naqaano dadkan qabiil iyo qurun iyo qabyaalad iyo xaasidnimo afocda ka reebay
marka inaan magacooda ku qaraabano iyo inaan iska dhuuqno iyo adiga afaarood ha gelin adiga wallaahi bilaata ururasay ugu dhehen waa ka shalaanaysaa wallahi say ugu dhehen wallahi kadib dadka caadigan waxay ugu dheheen warnimo dadkaa ma taqaanin buurum ha ka imaado hargeysa ha ka imaado burca ha ka imaado garow ha ka imaado kismaayo ha ka imaado muqdisho ha ka imaado beledweyne ha ka imaado baydhabo ka imaado dadkan muddo 30 sano anaga qurbaha markaa joognay dadkan waxay ku noolaayeen qob iyo qac environmentii ku noolaayeen macnaha gudoomiye kooxeed qabqable mooriyaan hebelasane inta ka bax madfac inta ka dhacay kadibna al-shabaab qabsatay qaraxyo bam baqbaq dowladda ku meel gaare marka waa dad noloshaas soo maray kadibna afrikaanka iyo maraykanka ay soo aadeen waxay sheegaan wadamada carabta way soo taariibeen filan yurubtan ay soo galeen war dadkan shariifo ah ku degdegin wallaahi bilaata saasay ugu dhehen aniga maxaa ugu jawaab mataqaanaa waxaan dhahay niyo haddaan annaga dadkeenne oo cusub annaga qurbaha wax badan joogno haddaan annaga wax tusinaynin oo anaga aan soo dhaweynaynin oo aan la kaftamaynin oo aan la sheekaysanaynin oo ayaga camal aan iska dhigaynin yaa wax u samaynaya soomaalida yurubta waa laga nacay maraykanka soomaalida waa laga nacay meel kasta soomaalida waa laga nacay wax kale looma nicine soomaalida dad xun maaha waa idin sheega dad fiicanaan nahay waxaanu lagu nacayniyo qaab dhaqameedkeenni iyo cunsurnimadeenni macnaha anaga dad kale ma rabno waa aragtay meel walba aragtay anagaas daba socon ma naqaan sida dadka loo dhex galo sida dadka loola macaamilo ajaaniibta iyo dadka gaalada si loola macaamilo annaga ma naqaano wax kale markeen waa idin sheegay waxaa keenay environmentiga dadkan ay kusoo koreen soomaaliya macnaha civil warkii oo ka dhaxay dalka keen dhibka kaasaa keenay marka aniga waxaan sameeyey wax mataqaanaa oo dadkan cusub aan kusoo jiidanayo macnaha anoo marka ayaga camal aan iska dhigayo qabiilkan ku kaftamaa qabiilkan shagsheega qabiilkan karbaasha waa aragtay wax u aabayeelayo bale hadalka mala gambanaayo hadalka sidiisa u dhahaa iska dhaaba dadkii hore dadka cusub oo taytaanidii kuwa hadda soo gale ila yaabo hindhaha ka soo haray waa aragteen maxaa yeelay way dhegaysanayaan waxay la yaaban yihiin hin adeegayga warkayga iyo sidaan u hadlay ee la yaabeen waa aragtay taageero badanaa ku samaystay yurubta iyo meel fiila aan joogto ilaa yurub dhan waa aragtay taageeraa ku samaystay qofka asoo qabiilkiisa aan karbaasha ninka abgaalka ama ninka habargadirta ama ninka dudublaha ama ninka murursadaha ama ninka daaroodka ama jarteenka ama isaaqa ama xawaadleh anoo aan karbaashayo qosla waa aragtay waa jeclaanaa maxaa yeelay marka hore mi fahmayo wuxuu malaynaa war ninkaan cadcadka raxamarkaan war ninkaan carabkaan baktiga war ninkaan wadada hayso war ninkaan laangaab ciila waay marka hore dhahaa laakiin markuu dhegaysto oo aan i fahmo qalbigayga dabeecaddeeda dadnimadii markuu ogaado waa i jeclaanaa taas marka waxay ka timid inaan taageero ku samaysto walaalayaal barnaamijka qabiilada iyo qabyaaladda iyo kaftankii karbaashka horta waxaan u bilaaba saas ahayd kadibna gabdhihii soomaaliyeed walaalahaygii garoobadii aan iskala kaftama iska baashaal ahayd ayagana taageeraan ku samaystay walaalayaal laakiin dhibaatada taagan insha marka sheekadan oo carab waxaan anaa keenay waxa waaye aniga nin carabaa tahay nin intuu dhaho aan waxa igama qaadaayo ma fahanteen taas idinkaa ka walwalan idinka wallahi bilaa tala sababta ugu baxa idin sheega marka social media ana carab qof idhahay wax macnaa ma samaynayo soomaali asaana soomaali ahayn nin dalkiisa soo burburiyey nin dalkiisa soo qarribay nin aanan canshuurta aabbihiisa awowgiisa oo 780 ninka hawiye ninka daaroodka ninka isaaqa awooyaashii ayayaashayna canshuurtii dalka ay ku dhiseen ku horumariyeen ay mataqaanaa gumaystii Itaaliya Ingiriiska uga saareen dadkii qarribay ani kuwaas ani soomaalinimo hadday dhaan soomaali matiid kuwaas wax macna mase ayaga ma soomaali ahayn original soomaali ma kuwaas macnaa jawaabtu kuwaas horta saas waa horta waxa waaye taas ma aha waxaas ma aha inaan soomaaliya ilaahay ma ogayo soomaalida og yihiin taas ma la isku haysto waxa waaye sheekaas anaa keenay marka dadkan carab ay dheheen iyo waxaas anaa keenay maxaa yeelay walaalayaal waa fikiraya ilaa intaas hadda waxaa idin sheegaa marka sababta oo social media u joojiyey social media ku dhawaad 4 sano xoogaan ku jiray walaalayaal social media intaan soo gelin waxaan lahaa guri soomaaliduna og yihiin oo aad u qurux badan magaalada xaafad la dhahayo mataqaanaa biti marka aan ka deganaa biilayestaan sheegaa aan ka deganaa iyo maalme walaalayaal waxa waaye social media qofka markuu soo galo dadkeena soomaaliyeed waa dad lagu soo waxa waaye isha macnaha qofkan hadduu arko labisan alla qofkan suu labisan yahay isha ku dhacaysa qofaa labisanayo qofaa qurux badan qofaa haysto isha ku dhacayso sida idigaa marqaati qonay sabab wax kale maaha annaga dadka qowmiyadaha kale qabiilada adduunka kale waxaa ugu duwannahay dadkeennii waxa waaye dhulkeena barwaaqo dadkeen barwaaqo waay laakiin dadkeennii qab iyo rafaad isaga soo koreen marka nin qurux badan iyo nin labisanayo iyo nin fiican ma la arki kara habeen ma arki karo maalin ma la arki karo isha lagu qabanaa marka ani marka dad badan waxay dheheen shariif quraan akhriso hadda kore sheeka idinkaga sheekeynaa nin iyo waxaa isla fadhiyey
afarna isla fadhiisa dadkan oo waxa waaye oo barnaamijyada aan u sameynaya dhiirigelinaya waay kaamay ku jiraan sheekada run ayda sheego oo ilaahay ogyahay asaga ayuu maanta ogyahay maanta risiqa qaarkood risiqa joogaan markaan soo galo waxa waaye saddex ka mide faatixaday marnaa waa ii ducaynayaan mid meesha fadhiyo uu soo booday wuxuu dhahay no ninkaan dhar badana horta ninkaan dhar badana lacagtaa ka badbadata ilaahay ku dhaarshay fiirsho sharci ma lahan waa nii jabsan yahay goboluu joogaa tuuluu joogaa cid wax u sheegaysa male aniga hadduu arko akhbaaraadka usoo gudbina asay dan ugu jirtaa ma ii ducaynayo anuu isha igu sii qabana markaasay dhalinyar inta soo waxay u dhaheen shariifow kaamamka dadaana ku dhahay ninkaan dhar badanaa iyo ninkaan lacagta ka daadanaysa iyo ninkaan dalxiiska saan baashaalaya iyo lacag ka badbadata iyo il waayo shariif intaada soo gelin quraan soo akhriso soo weyse qaado adoo weyse qabo soo fadhiyo social media wallahi bilaatadaasas ugu dhen waa dadka ijecel waay walaalayaal dadkeena noocaas waay walaalayaal dadkeena noocaas waay daari calisow shiino culay zola maanta wax runa ay taabsiinaa social media inta ugu caansan u fiirso nin isku totoosan xitaa hadduu daari calisow ugu roon oo maanta oo xoolo business sameeyey daari calisow ilaahina waa ogyahay asagana waa ogyahay anawaas naqaanaa wallaahi bilaah tallahi welwel iyo asaga dhanse si kale waay wax kale maa isha dadka waay isha dadka lagu qabana si kasta quraan u akhristo zool waad aragteen nin ilaahay intaas sano yurub jooga waay saasuu u wareega waa aragteen ma fadhiisanay reer uu leeyahay daba uu ku fadhiya ma qabo isha waay shiino culed aa aragteen ingiriiska jarmalka waa aragteen guri uu mataqaanaa studio ku samaystay guri waxaa ka bixi socialka jarmalka ka bixiso wallahi bilaatada lacag ceeran ku qaadana waxa waay isha dadka waay ninka la dhahayo mataqaanaa ugu caansan mataqaanaa ugu dadka badan youtube-ka mataqaanaa ck u fiirso hadda ilaahay ku dhashay ninkaas inta xoolo youtube ka soo gashay fiiri iskaabulo waay saasuu wareeganaa garkiisa u rafaadsiya ma aragtay saasuu wareeganaa dabuu ku fadhiya ma qabo isha waay kabtan ayuub waa aragteen sharci hataa malaha isha dadka waay jarmalku joogaa saasuu u wareeganaa yaa ka lacag badan yaa ka dad badan waxaa ku filan inuu waddan afrika ta waddan carab tago oo ijaarka iska bixiyo gurigu dego naag guursado raaxaysto ma jirto isha dadka saas u qaribayso waxaa soo haray ninka la yirahdo ayuub carlo hadda waa nin xaasla waay waa aragteen suu dhaqma waa aragteen shuu waa ku dhashay iyo babababa iyo waa aragteen wuxuu ku hadlay waa aragteen micnaha waxa waay naxas intuu iska soo badiyo isha dadka waay micnaha social media waxaa ku jira wax normal ah oo caadi ah ma jiro anaa hadda idin sheegaan nin kasta ilaa hayso wallahi bilaad wax kale maa dadkeennii societygeennii soomaalida la dhahayo qoomiyadda ah oo ilaahay naga abuuray qabaa'il noo abuuray waayo wax dhibka noo keena ishooda waay walaalayaal social media markaan ku jiray wallahi been ku sheega shaqada haddaan shaqayn nasiib ma laha shaqada ayaa alla ku shaqaynaya hadda markaan joojiyey wallahi been ku sheega wallahi qalbigayga niyadeyda waa degtay gurigayga kaala arag maasha allah waa isku toosana alxamdulillah shubha almaad ilaahi waay shaqada hadii wax kasta shirkada hadda raba inaan furto fooman buuxi shirkada furmaya oo aad u weyn haddaa intu siina isha igu qabanaysiin wallahi meel wax tusi karaataa ma jirto walaalayaal sababta u joojiyey isha dadka u joojiyey waa halis waay wallahina bay sheegeen marka alxamdulillah shubha caalamiin mahad ilaahi waay labadii wiig ama bishii hal maraa barnaamij idinku soo tuuraa 3 maalmood ku jiraa kadib waa xiraa ciwaankeyga maxaa yeelay isha dadka khatar waay marka nin walba waxaan kula talin lahaa inuu nolol raaxa samaysto adduunka youtube iyo social media lacag laga raadiyo waxaa kaaga sharbad hurdo fiican aa hesho jirkaaga caafimaadkaaga shaqadaada dhiigaaga inaa cunto wax kaaga sharaf badan oo kaaga wanaagsan ma jirto dhammaan waa islaam assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu